magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle lagu doortay gudoomiyaha rugta ganacsatada gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa soo dhaweeyay doorashadaasi ganacsatada degmada Balcad. Xilkan gudoomiyaha rugta ganacsatada gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa ku tartamayay laba musharax kuwa oo ay dooranayeen ganacsatada degmooyinka xorta ee gobolka Shabeellaha Dhexe iyadoona ugu dambeyn uu ku guuleystay Ciidiid Maxamed Cabdulle, Maama Nadiifa Baarbe iyo sidoo kale Xasan Mahdi Macluum Buuti oo kamid ah ganacsatada degmada Balcad ayaa u hambaliyay gudoomiyaha cusub ee rugta ganacsatada gobolka Shabeellaha Dhexe Ciidiid Maxamed Cabdulle iyagoona dhanka kale alla ugu baryeen inuu u fududeeyo shaqadiisa. Bismillahirrahmanirrahiim, alxamdulillahi rabbil caalamiin. Hambaliyo Ciidiid Maxamed Cabdullaahi waa ku hambaliyeenayna waana kugu hambaliyeenayna xilka aad noo qabatay waana ku faraxsanahay waxaan ognahay nin howlkar ah ee dadka iyo dalka iyo degmada iyo deegaankaba wax u qabanaya in aad tahay ganacsatada yar iyo weyn sida aan u dhannahay aad iyo aad ayaan ku taageersanahay intaan hore kaaga baranay nagu filan hadda kadibna waxaan ka rajaynaynaa intaas in ka wanaagsan inaad la imaan doonto xilka adiga lagu dhiibayna Allah kula garab garo ilaahay ha ku fududeeyo ilaahay ninka waajibkiisa guta Allah ka dhigo annagana si aad ah ayaan ku taageersanahay hadii aan nahay dadka reer Balcad kulli waxaan kugu hambaliyeenayna wanaaga hor aad u suubisay iyo kan hadda aan ka sugaynaba insha Allah khayr Allah ku fuliyo mas'uuliyadda aad qaaday waan ku faraxsanahay xilkaaga wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. alxamdulillah kafa ilaaba maad iskale Ciidiid Maxamed Cabdulle waa ku hambaliyeenayna gudoomiyaha ganacsiga gobolka Shabeellaha Dhexe saaruna gaar ahaan dadka degmada Balcad jooga ganacsatada ah ilaa yar iyo weyn aad ay ku taabacsan yihiin anna nin si aad iyo aad ku yaqaan ahay ina xagga ganacsigana ku dheer tahay oo aad nin u degan aad tahay xilkaagana Allah kula garab galaa ku leenahay annagana waa ku soo dhaweeynaa doo Ilaahay karaal noqdo saaruna dadka reer Balcad waxaan ka rabnaa waxyaalo badan inaan qabatid oo wax badan aan ka qayb gashay doo Ilaahay karaal noqdo wax badan oo naga dhumeena jiraan inaan noo soo celisado doo Ilaahay karaal noqdo ganacsiga xaggiisa waana ku hambaliyeenaa. Assalaamu calaykum. Cabdinaasir Cabdullaahi Cariif, Dalka TV, degmada Balcad, gobolka Shabeellaha Dhexe.